السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa inaan halkan ka bilowno casharo cusub oo ku saabsan PHP and MySQL. Kanina waxa uu noqon doonaa casharkeennii koowaad kaas oo ku saabsan Introduction of PHP and MySQL, hordhaca PHP-ga iyo MySQL-ka. Haddaba casharkeennani maadaama uu yahay hordhacii PHP-ga iyo MySQL-ka, PHP-gu waa maxay baynu leenahay? PHP-gu waxa weeye a server-side scripting language taas oo loo isticmaalo in lagu develop gareeyo websiteska. sidoo kale PHP-gu waa open source isla marhaantaana waa free. haddaba aynu isla eegno bal taariikhda iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu PHP-gu soo maray. versionkii koowaad ee PHP-gu waxa uu soo baxay 1994 isaga oo ku yimi form ah C programming language. versionkii labaad ee PHP-ga ayaa isaguna waxa uu soo baxay 1995 isaga oo markaas la oran jiray personal homepage tools oo macnaheedu waa halkii markii hore PHP ka timi oo markaas ayuu la oran jiray personal homepage. versionkiisa saddexaad ayaa isaguna waxa uu soo baxay sanadku markuu ahaa 1998 isaga oo magacii hore ee maxay ahayd Sole ahaa personal homepage laga guuray isla marhaantaana loo guuray hypertext preprocessor isla marhaantaana ilaa iyo hadda loo yaqaano. versionkii afraad ayaa isaguna waxa uu soo baxay sanadku markii uu ahaa 2000. guud ahaan markaas core iyo componentskii ku koobnaa ayuu tolay PHP-gu dib ayaa loo qoray company Zen la yiraahdo ayaana dib u qoritaan ku sameeyay oo dib u habeyn ku sameeyay isla marhaantaana waxa uu soo saaray Synology 1. version 5 ayaa isaguna waxa uu soo baxay sanadku markii uu ahaa 2004 waxaana ku yimi isagu Synology 2 isla marhaantaana waxa loo tadawuriyay ama se loo develop gareeyay oo loo horumariyay oo ah object oriented programming. sidaas oo kale waxa uu yimi high performance. version 6 ayaa la soo saaray maadaama kuwii hore ayna lahayn wax Unicode. version 6 iyo maxay tahay Unicode waxa uu xigay version 7 oo isaguna soo baxay intii lagu dhex jiray 2014 ilaa 2015. waxa kale oo imika socda waqti xaadirkan aynu casharka sameynayno version 7.015 kaasoo soo baxay 19 January 2017. kaas ayaa markaa versionkii ugu dambeeyay ee PHP-ga. PHP-gu maxay u taagan tahay waxay u taagan tahay sidaan horeba soo aragnay hypertext preprocessor. syntax-ka ama base noocee ay qoraalkeedu bal u ekaanaya aynu yeedinayna waxa uu la mid noqonayaa C programming language oo kale ama Java. haddaba PHP-gu waxyaabaha uu ka kooban yahay ayaynu isagana doonaynaa wax ku ogaano. waxa uu ka kooban yahay text oo qoraal ah HTML iyo scripts. marka doonayso inaad PHP-ga website ku samayso waxa laga maarmaan isla marhaantaana meesha ku jira inaad HTML-kii iyo scripts-kii aad waxyaabo badan kaaga bilownaadaan si aad u hagaajiso web pages-ka kuwaas oo iyagu guud ahaan lagu qorayo HTML. marka waa laga maarmaan in HTML-ka ay waxoogaa kaaga yar bilownaado. waxa kale oo jira PHP-gu oo support gareeyo database sida MySQL oo kale. waxyaabaha loo baahan yahay markaan doonayno PHP casharo ka sameeyo maba si aad doonayso inaad adigu ka samayso website oo aad locally ku sii develop gareynayso website-kaas. waxyaabaha aad u baahan tahay waxa kamid ah ama se aynu u baahannahay waxa kamid ah web server iyo PHP database iyo web browser. waxa jira software open source ah oo la yiraahdo Zen kaas oo inoo qaban doona maba se ka kooban package ay ku dhex jiraan saddexdan package ee kala ah Apache web server, MySQL iyo PHP. software-kaas aynu computerkeena ku install gareysana isla marhaantaana kaas aynu ku develop gareyna website-keena locally. waxyaabaha kale aynu u baahanahay waxa kamid ah xagga sare aynu ku xusinay web browser kaas oo ay kamid yihiin Mozilla Firefox, Google Chrome ama se Internet Explorer. halkaas ayaynu ku joojinaa casharkeena koobnaa ee ku saabsan hordhaca PHP-ga. waxaynaynu ka dalahayno in aynu maxay toolay in yar hordhaca barsidii ugu soo baxay iyo waxyaabihii marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray in aynu ku soo qaadano si toosan insha Allah waxaanu bilaaban doonaa casharadeenna imtixaana. halkaas ayaynu inoogu joogayaa casharkeennii koowaad ee ku saabsan Introduction of PHP and MySQL. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.